aqoontu waa furaha nolosha ilayska aadmigu kaga gudbo mugdiga. xirfaddu waa farsamada ugu sarreysa ee qof u horseedi kara shaqo abuur. waxaa la rumaysan yahay in qof kasta oo xirfad leh uu inta badan ka horeeyo kuwa kale ee leh aqoonta kale. Somaliland waxaa si weyn u kordhay fahanka bulshada ee ku aadan qiimaha barashada xirfadda farsamada gacanta oo haatan dunidu ay u aqoonsan tahay shaqo abuurka ugu weyn ee kaalin weyn ka ciyaara horumarka uu wadan hiigsanayo. laga dhistaa oo laga sameeyo guryaha looxaan baa laga sameeyaa oo bilowgurka koona aynu nidhaahno oo kale ayaa laga sameeya waayo jiingad ama qalabyada kala duwan ee wax lagu dhiso. halkani waa xarunta barashada xirfadda farsamada gacanta ee Candlelight oo ku taalla magaalada Hargeysa gaar ahaan degmada Maxamed Mooye. xaruntani waxaa ka aflaxay isla mar ahaantaasina guul nolosha ka gaadhay kumanaan dhalinyaro iyo dad waaweyn bale kuwaasi oo kaalin ku yeeshay guud ahaan Somaliland. barnaamijkani kooban waxaynu diiradda ku saaraynaa xarunta barashada xirfadda farsamada gacanta ee Candlelight. waxaynu eegi doonaa sida ay bulshadu halkani uga faa'iideysato. waxaa halkani lagu bartaa qaybo badan oo xirfadda farsamada gacanta. waa daayira inta badan ka muuqato yididiilo ay doonayaan inay rajo ugu beeraan noloshooda iyo tan qoyskoodaba. waxaa ka muuqata kalsooni ay siiyeen barayaasha halkani. waa ku faraxsan yihiin inay bartaan xirfaddani farsamada gacanta. waana goob u diyaarsan halkani ay joogaan markaad eegto agabka iyo qalabka dhex yaalla ee markaasi ardaydu ay adeegsanayaan. waa meel ay ka soo aflixeen kuwo badan oo ka mida ganacsatada Somaliland ee leh xarumaha lagu sameeyo baabuurta, kuwa shirkadaha leydhka iyo goobaha kale ee markaasi shaqo abuurka u sameeyey qaybo badan oo ka mida shacabka Somaliland. kuwani waa qaar ka mida ardayda baranaysa xirfadaha kala duwan ee lagu qaato halkani oo sharaxaya sababaha ugu waaweyn ee ay ku doorteen xirfaddan iyo sida ay doonayaan in Somaliland ay kaalin ugu yeeshaan gaar ahaan dhinaca shaqo abuurka. waxbarashadan waxaan marka hore aan u bartay inaan muxuu ahaa ka mid dhaliyo. xirfaddan aan baranay waxay u kalifay markii aan dhameeyay dugsigeygii sare form 4ka aan baxay doorkii dhaweyd. xirfadda waxaan u baranayaa saa naftayda iyo waalidkay ku anfaco dalkana wax ugu qabto. marka hore Ilaahay baa mahadle farsamadan waxaan u baranay saan nafahayga ugu yaraan ugu anfacno waalidkayga aan anfacno. waxa ugu yarood ku qabsan karaysa wardeenin lacag Ilaahay kaaga dhow nin xirfad yaqaanana Ilaahay kaaga dhowday macnaha masaaj baa caawin karaysa habada. maana noo degmooyinkii ku wada jirnaa waxaan ka faa'iideysanay xirfad 6 bilood ah taasoo aan u barannay inaan baahidayada aan ku kabno. waxaan halkan mar labaad ka salaamayaa maamulkayaga Cabdimaalig Cabdilaahi oo aad noogu dhiirigeliyay inaan baranno xirfaddan. waxaan jecelnahay inaan dadkayaga wax u qabanno. waxaan jecelnahay inaan badanaa aan farsamada inaan barannay aan ku shaqaysano ariga habeen. bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Sahiib Maxamed Cali. waxaan ka tirsanahay ardayda dawaarka ka barata dugsiga Candlelight. mashruucaas ay maalgelisay hay'adda Concern. ugu horreyn horta waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay kaasoo maantay aanu taaganahay na gaarsiiyey gabagabadii muddo 6 bilood ahayd oo aan tababarka dawaarka qaadanaynay. alxamdulillaah. marka labaad waxaan u mahadcelinayaa maamulaha dugsiga Candlelight
cabdimaalig oo si fiican intii aanu sugnayn halkan noola shaqeeyey sidoo kale waxaan mahadcelin aad u ballaaran u gudbinayaa macalinkeyga xasan oo si hagar la'aan ah intii uu socday barashada xirfadda dawaarku sida ugu fiican noogu soo gudbiyey dadaalkiisana waxba naga hagranin waxaan leeyahay macalin waad mahadsan tahay ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro horta haddii aan ka waramo intii aan baranayay xirfaddan horta waxaan dareensanahay inay xirfaddu maanta ka muhiimsan tahay waxbarashadii kale ee tiyariga ahayd insha allah waxaan rajaynayaa inay wax fara badan iska bedeli doonaan noloshayda gaar ahaan xirfaddan aan bartay wax fara badan aan ka bedeli doono noloshayda insha allah waayo xirfaddu way ka muhiimsan tahay waxbarashada kale waxaa suurtagal ah inaad 12 sano soo waday waxbarasho tiyariya laakiin aanay kuu suurtagal inaad ku shaqaysid adigoo sekondary ka baxay laakiin muddo 6 bilood ah xirfadaad baratay ay kuu suurtageliso inaad si fudud ugu shaqaysid marka ugu dambaysa waxaan mahadcelinayaa hay'adda Concern oo naga caawisay mashruucan maalgelisayna waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin aad baan idinkaga mahadcelinayaa insha Allah waxaan rajaynayaa inayna maalgeliso maadaama aan u baahanahay qalabkii aan ku shaqayn lahayn oo dawaarku u baahan yahay in mashiin lagu shaqeeyo waxaan ka rajaynayaa inaan qalabkaasna ka helno haddii Ilaahay ogolaado waxaan ka mid ahay mid ka mid ah ardayda iskuulka ka dhalay VTC waxaan dhigtay xirfadda event decoration and planning iyo sidoo kale waliba cake decoration-ka xirfaddan waxaan dhigaynay muddo 6 bilood ah oo bishii u dambeysay maanta ku jirno xirfaddan waxyaabaha aan doortay waxa ka mid ah maadaama oo casrigan aynu ku jirno yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee la adeegsado hadday tahay qurxinta xafladaha aroosyada meherada iyo waliba munaasabadaha gaarka ah waxyaabaha aan doortay waxa ka mid ah inaan naftayda ku anfaco dadkayga ku anfaco sidoo kale jiilkayga dambeeyna aan ku tababaro oo aan soo saaro dad leh xirfaddan leeyahay oo kale xirfaddan waa mid aad u muhiimsan marka loo eego suuqa aan joognay marka dhanka shaqada iyo waxbarashadaba aad bay u muhiimsantahay saa daraadeed waxaan doonaynaa inaanu intan ka balaadhino oon waxyaabo badan kusoo kordhino mustaqbalka insha allah waxaan xirfaddan bilaabay 3 bishii 8 2022 xirfaddan waxay u kalifay faarastigii markaan secondary-ga ka baxay jaamacadda galayay waxaan isiri si aad waalidka culayska uga dulqaado aad yacni aad ku kalifi leedahay lacag ka bixiyaan jaamacadda adigu ku xirfadaad barato oo bulshada ku dhex gasho oo ku shaqaysato waa inaad barataa marka waxaan soo ogaaday in halkan dugsigan Candlelight laga bilaabayo xirfadahaasoo noocyada kala duwan markaan waxaan door biday inaan barto xirfadda qurxinta iyo beautification-ka qurxinta dumarka iyo koofeerada iyo waxa alxamdulillah shukr maalintii aan soo galay meesha iyo maanta farqi weyn baa ii dhaxeeya maalintii aan soo galay wax yacni aan ka fahansanaa xirfadda ma jirin maantana waxaan marayaa heer aan ku shaqo tagi karo goob kastoo la geeyay aan kaga shaqayn karo waxaan u mahadcelinayaa hay'adda hawlgelisay ee maalgelisay Concern iyo Candlelight iyo macluumaadayda alxamdulillah shukr macalin Yaasmin aad baan uga mahadcelinayaa way maanta soo galay iyo maanta isku meel ma taagni aad baan uga mahadcelinayaa anigoo afka ardaydana waliba ku hadlaya dhamaantayo aad baan ugu wada mahadcelinayaa maanta halkaan joogno ma soo koobi karno maanta halkaan joogno iyo maanta halkaan taagnay inaan soo galnay aad baan ugu mahadsantahay Concern iyo Candlelight maamulahayaga macluumaadayda dhamaantood aad buu mahadsan yahay waxaan halka soo galay bishii 8 2022 waxaan ka mid ahaa ardayda dhigata dugsiga sare Fonfore sanadkan baxay baan ahaa waxay igu kalifay inaan xirfaddan barto inaan naftayda ku anfici karo kuna shaqaysan karayo income dhaqaale oo jaamacadaha iyo noloshaydan ku horumarin karayna aan ka sameeyo waxaan halkan si gaar ah uga mahadcelinayaa hay'adda qaadatay kontaraagan Concern iyo hay'adda kale Candlelight sidoo kale waxaan aad mahadcelin aan inaba caadi ahayn aan mahadcelinayaa macluumaadda Yaasmin Axmed Shaqale maamulahayga garab taagnaa intaana inaan wax barto amba inaan ka mid noqdo arday maanta naftiisa horumarin kara naftiisa wax kasta uu qabsan kara aan noqdo sidoo kale different aad u fara badan bay dhaxeeyay because maalintan halka soo galay ma ahayn qof nolosheeda cashan maarinta kasako qof wajigeeda calashaanba gacanteeda xino marsan karaysa maanta waxaan ahay qof nafteeda ka bulsho ahaan marka laga yimaado qof nafteeda kaliya kalsooni ahaan isku dhamaystiran sidoo kale waxaan bulshadana ku baraarujinayaa xirfadda maanta nolosha aqoontu
saad u heshaa waxbarasho way adag tahay in qofku waxbarto xirfadan aad barataa waxay ka badan tahay baan isleeyahay inaad maanta aad noloshaada horumarka u badan aad ku gaarsiin karaysid qofka xirfad batay maanta waa qof noloshiisa horumarsin kara sidoo kale wadanka shaqo la'aan kama jirto inaga idea-da iska dhaadhicinay maanta shaqadan aynu ka shaqaysaneen xirfadan aynu baranay nolosheena iska day xataa waxaan ku horumarsin karnaa bulshadeena waxaan oran lahaa badanaa hablaha fanfoorada ka baxay maanta shaqo la'aan baan haysaa sidan baan haysaa inay xirfadaha bartaan meel kastoo xirfad lagu hadlayana ay galaan xirfaduhuna ay noqon karaan dawada shaqo la'aanta qaranka xirfadan waxaan ku doortay كل يوم سيدا رنتي سكيلز وحلا لون بشقية عالم كان مقرنسا إن دو تشغنو وحويا قف مركو حرفة يقانو تي بخساب وحنقولي وشغتي كره مركا حرفة مداوين كودي سيدا رنتي أنا مكردي وحنقولي قبل دي بنشوفنا أنو دميس كذي maalintii xirfadani ugu horeysay dee waxaan gabbaan ahaa oo nin waxaan ku uri aan waxba aqoon leerka iyo electricity ka haysta ma aan ka haysan baan ahaa laakiin maanta wax badan ma leerka faahsanay saruntiya waan ku shaqeyn karaa waan ku shaqeeyay imka waxoogaa imka waan isku shaqooyinka dee aan electricity iga hor yimaada waan qabtaa waxaan tirigareeyay markaan heer jaamacadeed ayaga dugsi dhexe dugsi hoose ka saaray inaan aniguna dub imika aan dub isu doono isu daba qabateeyo aadna ugu faraxsanahay waxaan ku haysanaa macallimiin sharaf badan oo hooyooyina oo nala fahmaya inuu waqtigu naga riday ubadkayagii aanu isku haleeli weynay inaan anaguna wax baranno maadaamaanu qaxoonti la kulannay markay sidaas aanu u bilaabi lahayn aanu ayagii uun la baxsanay macallimiintaas oo hooyooyin u badan ayaan wax ka dhigtaa aad iyo aad waxaan la fadhiyaa ubadkan iyada u ahaa leeg ama kuwayga qaar kuwaasaan ku qanacsanahay kuwaasaan la dhigtaa aad iyo aad iyo aad iyo aad baan u nimcaysanahay nimcadaana ilaahay baa na siiyo hooyadii wax baratay iyadu ee carruurtayada mar la baratay ama ka horreysay ayaa annagii oo imika ayeeyaa noo dhigaysa waa ilaahay mahadi waxaan aad ugu guubaabinaya hooyooyinka ila midka ee isu haysta inay gaboobeen isu haysta inay wax baran karin inay wax bartaan ay baran karaan anigu halkan fasalkan quraanna waan ku dhigtaa maadadiina waan ku dhigtaa dhammaanteed marka waxaan aad ugu boorinaya inay hooyooyinku kor soo qaadaan nimcada u dheerna waaba hooyaaba wax u dhigaysa soo soconay ashkeennii hore lagu joogay baabayti doomaanta baabayti la rikaab ku sameynay PowerPoint marka hore waa maxay isweydiin PowerPoint waa kugu caansan ama loo adeegsado in qofku ku sameeyo soo jeed waxaa loo adeegsadaa warbixinaha oo kooban si loogu soo gudbiyo wuxuu ka kooban yahay waa slide-daas waxay leeyihiin background sidoo kale email baad gashan kartaa waxaad ku qori kartaa dadaalka iyo tayada halkani waxaa si weyn uga muuqata habka ay barayaashu ugu gudbinayaan ardaydani aqoonta halkani taalla kuwani waa qaar ka mid a macallimiinta halkani wax ka dhiga oo ka warramaya qaabka ay ardayda wax ugu dhigaan anigii ardaydayda annagoo gudanayna waajibaadka iyo shaqo oo ah qaybta laxaamadda sida farsamada albaabada iyo taangiyada xagga dambe ka muuqda biraha halkaa ku samaysanee iminka idin wada muuqda sida khasnadaha kabadhada kabasaarada biraha dhirta lagu beero ee shabiga lagu wareejiyo iyo dhammaan waxa halkaa idinka muuqdo o dhan waxaa sameeyey ardayda iga dambeeya oo aad iyo aad aan u soo wada dadaalay muddadii aan halkan wax ku wada baranay 6 bilood ahayd aad iyo aad baan uga mahad celinaya iskuulka ka dhalayd iyo maamulka iyo ardayda iyo macallimiinta dhammaantood way mahadsan yihiin wada shaqayn fiican insha allah waxaan rajeynayaa inay shaqo tagaan insha allah halkani waxa weeyaan dugsiga tababarka farsamada gacanta ama vocational training
ee Candlelight VTC. goobtan imika aynu joognaa waxa weeyaan kalaaskii xinna and beautification sidaad halkanba ku aragtaan ardaydu waxay ku jiraan examkii waxay ku jiraan darowinka ama waxay qorayaan xinne laba waraaqood ka kooban oo ay ku qorayaan nashqadihii ay soo dhigteen waxa ay soo wadeen waxbarashadan muddo 6 bilood ah kulli maalmihii ugu dambeeyay baynu maanta ku jirnaa ma sha Allah si fiican bay u barteen maanta iyo maalintii ay yimaadeen farqi weyn baa u dhaxeeya waxyaabaha ay barteen waxa ka mid ah xinnaha iyo makeup-ka sida loo qurxiyo wajiga iyo sida xinnaha loo mariyo ilaa heer waxay ka gaadheen maanta ay marin karaan xinnaha aroosada marka waxaan u sheegnaa bulshada dugsigana waa dugsigii farsamada gacanta Candlelight labadii gelinba uu shaqeeyaa labadii gelinba waxa lagu dhigaa farsamada gacanta waxyaabo fara badan sida cunto karinta magacaygu waxa Maxamuud Diris Jaamac goobtan aan joognaa waxa weeyaan qaybta hay'adda Candlelight farsamada gacanta anigu waxaan ahay macalinka dhiga electriga imika tusaale ahaan ardayda idin muuqataa waa qaybta ugu dambeysay oo ah labada soo gala ilaa afarta ku jira muddada ay dhigtaan muddada la doonayo inay ku qalin jabeen haddii Ilaahay ka dhigo wax weeyaan 6 bilood haddii Ilaahay ka dhigo ka gaar ahaan aniga waxaan dhigaa qaybta akhris qoraalka ee waxbarashada dadban ee haweenka waxa kale oo jirta iyadana oo ku dhex jirta oo iyadana jirta waxbarashada caruurta yar ee xilliga waxbarashada caruurta yar ee danyarta ah ee awoodi kari waayay inay tagaan iskuulada tooska ah iyadana waxa aanu u dhignaa iyadana oo inoo dhex socdaan kabid loo sameeyo sanad ilaa 2 sano kadibna lagu qiimeeyo dugsiyada tooska ah oo asaasiga ah maadooyin fara badan ayaa lagu dhigaa xaruntan horumarinta waxbarashada dhalinyarada iyo haweenka iyo ragga waaweynba xiisada maadooyinka lagu dhigo ee ka gaar ahaan aniga ka amaan ahaan aan dhigo waxa yihiin akhris qoraalka oo ah barashada afka Soomaaliga xisaabta cilmiga bulshada deegaanka iyo barashada ganacsiga oo laga kabo haweenka ganacsiga ku jira oo loo dhigayo xirfadaha ganacsiga iyo maamulida ganacsigooda si ay u maamuli lahaayeen maadaama nolosha imika ay akhris qoraalba ku salaysan tahay oo ay de noloshiba computer ku jirto ayaan caawimadeeda iyo habeynteeda ayay hooyo wal oo kasta ay u soo xaydatay inan kasta inay waxbarashadaas ka faa'iideysato bilaashka ah cabdimaalik cabdilaahi xuseen maamulaha xarunta barashada ee Candlelight ayaa si qoto dheer u sharaxay aasaaskii xaruntani iyo kaalinta ay bulshada reer Somaliland ay ugu jirto isagoo sidoo kalena hoga tisaaleeyay xirfadu kaalinta ay nolosha bulshada ka qaadan karto gaar ahaan dhinaca shaqo abuurka dugsigan oo la sameeyay ama la aasaasay taqriiban 2005 wuxuu jiray muddo 17 sano marka lagu daro sanadka 18 sano ay noqonaysaa wax ka baxay dad kala duwan kumanaan ayaa noloshooda ku dabaray qaar kalena waxay rajeynayaan insha Allah tacaala inay hiigsanayaan inay noloshooda ku dabaraan waxaan dugsiga lagu dhigaa in ka badan 15 xirfadood oo kala duwan oo ay ka mid tahay biyo-gelinta dawaarka cunto karinta xaamada leydhka iyo solarka paintingka qurxinta xafladaha iyo aroosyada xinaha iyo beautificationka computerka paintingka solarka leydhka iyo solarka akhriska iyo qoraalka waxa ka baxay 34 dufcadood in gaaraysa hadda dugsiga waxa dhigta tiro 200 in ka badan 200 oo arday gelinka hore waxaan wadnaa iminka mashruuc ay naga taageertay hay'adda Concern Worldwide 100 arday oo kala duwan ayaa iminka dhamaysanaya waxbarashadoodii sidoo kale gelinka dambe waxaa dhigta arday iyagu iskood waxbarashadooda
iyagu ay iska leeyihiin waalidkood iyo iyagu tacabka waxbarashadooda waxay yihiin kuwaas iyaga laftooda imika way dhamaysanayaan insha allahu tacaala sanadka cusub ee 2023 waxaan rajeynayaa inaanu tiradaas intaa aanu ka sii badino oo aanu sii labalaabno kuna dadaalo inay iyagu dadku ay waxbarashada ay fahmaan macnaha ay leedahay farsamada gacantu kuna dadaalaan inay ku bixiyaan fiigooda dadka inta badan waxaa ka dhacsan ama mentality-gooda ku jirta waxbarashadu inay farsamada gacantu ay iska tahay waxba yahay laakiin sanadahan dambe way ka soo baxayaan aragtiyahaasi oo dad badan oo imanka sidaa wada arkaysaan iskuulka ka tirsan iyagaa fiiga iska bixiya waxaanan insha allahu tacaala rajeyneynaa oo noo qorsheyso sanadkan 2023 inay tiradaas sii labalaabno tayada waxbarashada aanu runtii kobcino kuna dadaalno inaanu farsamo soo saarno farsamo yaqaano xirfadoodu runtii sareyso waxaan halkan fariin uga dirayaa oon jecelahay inaan la wadaago ardayda ka baxaysa primaryada sida 8 oo kale secondary oo kale something kuwa jaamacad oo kale in farsamadu ama skill hadaad barato aad runtii aad shaqo tagi karto waalidiintana waxaa leeyahay ardayda ama waalidkiin ama caruurtiina waxaa ku dadaashaan inaa farsamo bartaan adduun weynahoo dhan imanka waxay iskugu soo wada ururaysaa in dadku ay bartaan farsamada gacanta waayo waa la fahmay macnaha ku jira la fahmay anagu kandhaleyd ahaan ama xaruntan farsamada gacanta ee Maxamed Mooge magaalada Hargeysa haddaan nahay si wanaagsan oo qiimo badan oo gacmo furan insha Allah tacaala ugu dadaalay inaan soo gudbino inta in ka badan inaan sii laabno inaan insha Allah dugsiga sii balaarino oo qaybo kale oo imika vocational training short ayaan baan bixinaa koorsooyinka 6 bilooda insha Allah qorshayga waxa nagu jirta inaanu sii balaarino oo sida aanu noqono dugsi institute weyn oo technical ah mustaqbalka insha Allah tacaala Candlelight xarunta barashada xirfadda farsamada gacanta oo ka mid ah goobaha sida weyn ay bulshada Soomaaliland ay u mahadiyaan tan iyo waqtiga dhidibada loo taagay kuwaasi oo soo saaray dad badan oo noloshooda iyo tan qoyskoodaba kaalin ku yeeshay isla mar ahaantaasina maareeyay maantana jooga guulo ay ku taamayaan sababta ugu weynna ay tahay xaruntani barashada xirfadda farsamada gacanta ee Candlelight oo markaasi ay ka soo aflaxeen